السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمها بدن ee ku xiran channelkeena YouTube sahalti wali waxaan ku guda jirnaa barashada Microsoft PowerPoint casharkan shanaad maanta waxaynu ku qaadanaynaa sida presentationka ama PowerPoint-ga loogu soo daro ama looga dhigo transition ama sida loo saaro transition ayaan ku qaadanaynaa isla socod wanaagsan ugu horreyn waxaan soo furanaynaa PowerPoint-ga ayaan soo furanaynaa halka casharkan noo muuqda waxaan ku soo qaadanay maarta design ayaan ku soo qaadanay sida loo qurxiyo hadii PowerPoint black and white uu yahay sida loo qurxiyo loogu soo daro design ayaan ku soo qaadanay designkii maarta ay noo saaran okay waa kan design halkan designs badan ayaa noogu diyaarsan hadba mid ka rabtid ayaad qaadan kartaa hore ayaana u soo baraatikaynay okay maanta waxaan qaadanaynaa marka transition muxuu yahay transition ayaan qaadanaynaa okay hadda cashirkan aad u jeedaan transition ayaa inoo saaran aan fiirino okay halkaa inoo taab oo start from beginning halkaas inoo taab waa u jeedaa okay cashirka markuu noocan oo kale u soo galaya waxaa la yiraahdaa transition noocan ayaa waxaa la yiraahdaa transition sidee ayaan ku sameynay ama sidee ayaa loo sameeyaa transitionka hadda noo saaran maxaa loo yaqaanaa okay isla socod wanaagsan okay transitionka hadda inoo saaran waxaa la yiraahdaa glitter ayaa la yiraahdaa glitter okay hadda waxaan isku dayaynaa marka midka inoo saaran midaan ahayn inaan saarano okay waxay ku xiran tahay transitionka waxaad rabtaa dhammaan all pageska inay ku wada jiraan haddii aad rabto dhammaan all pageska hal transition inuu wada lahaado waa wada dooranaysaa control A ayaad leedahay control A markaad dhahdo transition halkan ayaad imaanaysaa halkan markii aad imaato marka waa kuwan waxaan oo dhan waa wada transition waxaan oo dhan waa transition mid alla midka doontid ayaad saari kartaa okay halkan waa doors waa sida albaabada oo kale inuu furmo halkan waa box halkan waa com marka anigu waxaan saaranayaa transition la yiraahdo curtains inuu maarta page-kayga ama slide-kayga inuu u soo furmo sida daahmanka oo kale inuu kala baxayaan raba oo glitterkan aan ka bedelo okay halkan aan imaado meeshan waad u jeedaa waxaa ku qoran curtains curtain macnihiisu waa naqaana English ahaan waa daahma okay curtains halkan ayaan ku dhufanay halkan markaa ku dhufto waa u jeedaa sidaas ayuu noqonayaa okay sidaas ayuu noqonayaa okay halkan ayaan leeyahay slide show ayaan taabanayaa waa kan qaabka ayuu u soo gelayaa okay next aan iraahdo waa u jeedaa okay slide 3 okay slide ka xiga 4 slide 5 okay waa u jeedaa marka qaabkaas ayaa loogu soo daraa transition oo maaragta hadda 5 page oo kala 5 slide meesha ugu diyaarsan adigu hadii ilaa 100 slide ay kugu diyaarsin xitaa hal mar aad wada dooranaysa kadibna waad saaranaysaa okay curtain-kaas mid ka duwan ayaan saareynaa mid kale ayaan ku tijaabinaynaa si fahankeenu uu u dheeraado okay waxaan ka dhigaynaa marka bush waxaan in la riixayo kale kan ayaan dooranaynaa bushkan ayaan dooranaynaa okay kadibna slide show ayaan taabanaynaa from beginning node waa u jeedaa waxa in la bush gareynayo oo kale ama in gadaal laga riixayo oo kale kor ayuu u kacayaa waa u jeedaa okay hadba maarta midka adigu ku anfaca ama midka ku cajibiya ayaad saaranaysaa qofba waxba isticmaalaa anigu hadda curtainskan ayaan u deysanayo kan ayaa i cajabiyay okay casharkan shanaad halka ayuu nooga eegyahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar like nagu dhiirigeli wixii faal iyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka